صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. marka hore madaxweynaha iyo xildhibaanada iyo golayaasha dawladda iyo wasiirada ban iyo gobolka iyo degmada dhamaantood iyo marti sharafta dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib waa ku faraxsanahay inaan imaado degmada Gaalkacyo madaxdii ugu soo dhaweysay oo heerar kala duwan, heer dawladeed iyo heer baarlamaan, heer gobol iyo heer degmo intaba lahayd. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin soo dhaweynta wanaagsan. sida ay soo dhaweysay waan ku mahadsantihiin, waan ka mahadcelinayaa. inta haddaan ka gudbo Gaalkacyo, marka hore dalka waa loo wada warhayaayoo xoog iskuma seegana, laakiin madaxweyne garow waan anigu saaka ka yimi goor hore oo waa lagu nabad qabay, dhibi kama jirin. waxa hadii la ah cusub kama jirin, waa lagu barwaaqaysnaa. caasimadii oo barakaysan bay ahayd. Gaalkacyana kolley intii alla idmo uun booqashaan ku soo gaaray. horena madaxweynaha ugu sugnaa in shaqo laga qabtay, shaqo laga hayayna waa la ogaa. aniguna maantaan kolley ku soo biiray. waxaan filayaa muddo 3 asbuuc haddaan wax dheerayn baa madaxweynuhu idinla joogay. haddii warar badan baana soo gaarayay oo ahaa Gaalkacyo shaqo wanaagsan baa laga qabtay, bal shaqadaana inaan aragno. Gaalkacyo u baahnayd in shaqada laga qabto, madaxweynuhu u yimaado. hal qodob baan ku darayaa, ku gabagabeynayaa oo ah wararku waxa la isla dhex marayay in madaxweynuhu gobolka Mudug yimi oo muddo joogi doono, caasimadii ka yimi oo aan muddo ku noqon doonin. madaxweynuhu caasimadda waan ku noqonayaa. gobolladuna si cadaalad oo feera in gobol walba laga shaqeeyo xaq buu u leeyahay. kana waa ka shaqeynaya, hadduu ka shaqeeyay shaqo fiican buu ka qabtay. kuwa kalena waa ka shaqeyn doonaan caasimadda hayn. caasimaddana waa joogi jiray, waan ku noqonay, waan ka shaqeynaya, iyadana waa ka shaqeynaya. shaqada un bay ka mid tahay, wax ka baxsan maaha. intaa wixii ka baxsanna dib baan iska wareysan doonaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.